assalaamu calaykum daawade ku soo dhowow qaybtii labaad ee xasuusihii sirdoonka Soomaaliya ee NSS waxaa laga soo gaabiyey National Security Service oo ahaa nabad sugidii iyo sirdoonkii Soomaaliya Intelligence Agency of Somalia. anigoo wata magaca iyo aqoonsiga dal kale ayaan markii saddexaad gaaray Itoobiya kadib duulimaad 8 saacadood ahaa bilihii u dambeeyay sanadkii 1970 waxaa aqalkiisa nagu casuumay wasiirkii garsoorka Itoobiya xiligaas dhowr daqiiqo kadib waxaa soo gashay gabar da'deeda aan ku qiyaasay 25 jir oo qor iyo qalab ciidan ku joogta intayna salaantay ayay qorigii aabaheed dhabta u saartay kadibna aqalkii horay u gashay waxa ay galay shaki ugu badnaa oo ahaa armaa lagu aqoonsaday inaad tahay Soomaali kaaga sii darane haddii la igu ogaado inaan ahay sarkaal ka tirsan ciidankii nabad sugidda Soomaaliya oo qorshaha uu ku joogo Itoobiya dejinteeda iyo diyaarinteedaba iska lahaa waxaan hubaa in qoorteeda dhinac loo saarayo waanse u soo bareeray oo baryahaas waxaa igu weynaa qaran Soomaaliyeed qiimo gaarana ii lahaa intuu dhoola cadeeyay ayuu yiri gabadhan iyo qaar kale oo asaageed ah waxay dalkan u qabteen waxaysan jiilka nagu qaban waxaase lagu qoyi doonaa baalasha taariikhda wax yar kadib ayay inantii oo doorkan muujisay dumarnimadeeda soo dhigtay cabitaan iyo haruubyadii lagu fuudi lahaa hadal dheer kadib oo u badnaa haaraanka iyo gardaamooyinka loo maleegay dalkan aan u dhashay una dhaartay inaan u dhinto ayuu si xishmadi ka muuqato uga codsaday gabadhiisii inay gaarigooda laadada ah igu qaado ina geyso fuduqan deganaa yaadaan doonaya inaan xoogaa meermeero magaalada hadal dheer oo u badnaa haasaawe iyo hadal malagii galay ayaan weydiiyey halka ay heeganka kaga jirtay waxay tiri jigjiga iyo dhulka ku heeran ayaan xilkeeda difaaca hormuudkeeda ku jiraa haatan fasax gaaban ayaan ku imid oo waa aniga agabkii hadda dhigay anigoo qarsanaya ciilka iyo carada iga buuxda ayaan iri ma dagaal ayaad u joogtaan mise difaac kaliya intay qososhay ayay tiri xamar iyo xeebaheeda berbera iyo banka diyaaradaha dagaalka ilaa aan ku tagno waxaan ku dhaaranay inaan qoriga dhigin haddaan dhimanana dhasheenna ayaa qaadi doonta inta laga xaqiijinayo riyada qaranka Itoobiya intaan garabka gacal beeneed ah ka saaray ayaan ku iri sootii madaxdiina Afrika ku heshiiyeen xadku inuu noqdo kii uu ka tagay gumaystuhu dawlad kasta intay soo eegtay ayay tiri dunidu waa naga ogashahay inaan qabiilka Soomaalida ah ee naga falaagooday aan xoog iyo xeelba ku soo ceshano waxaan ku iri laakiin sida ay qorayaasha taariikhdu weliyeen dadka Soomaalida ah waa qaar aan la loodin karin oo dagaalkana ku daran naftuna ay qiimo u lahayn haddii wax ay leeyihiin xoog looga qaato waa qoom darane adigu gabar quruxan ayaa tahay iisan naga kaadafine xoog isku ilaali anigoo ku laray dhoola cadays been ah ayaan daaqadii iska furay intay soo degtay ayay horay ii sii raacday ilaa aan ka gaarnay kadinkii funduqii aan u hoyan lahaa habeenkaas muddo gaaban kadib waxaa dhammaaday hawshii aan u joogay Itoobiya anigoo ku joogay magac iyo meeqaan qaldan waxaan ku soo noqday xamar iyo xaruntii dalka moogaan waxaan ahay xiirane oo ka soo noqday tababar dhinaca ciidanka ah oo ugu maqnaa dal aan saaxiibanahay sidaas ayaa loo sheegay saraakiisha hoose iyo shaqaalihii dharaarahaas aan wada joognay wuxuu igula ballamay taliyihii nabad sugidda Soomaaliya ee xiligaas inaan warbixinta aan sidoo ku siiyo funduqa Juba salaadii maqrib markaan ku soo tukaday masjidka Sheekh Cali Suufi ayaan soo eriyay gaarigaygii anigoo isla waad ka dahday ayay jidka Colombia iyo wadada Kismaayo halka isaga darmadaan iga banjartay kadibna intaan dhinac jidka uga saaray ayaan soo lugayay anigoo neeftuuraya ayaan soo galay Juba oo aad moodo habeenkaas inay ciid la dambaabayo tahay gabar shaqaalaha kamid ah ayaan weydiiyay xaalka jira caawe hebel ayaa aroosaya caawa ayay ugu tiri waa wiil ina wasiir ah dhowr wasiir oo guduhu kamid yahay ayaa indhahaygu qabteen xoogaa kadib ayuu soo galay taliyihii ciidanka nabad sugidda asagoo si u degdegsan ayaan dhinac shaah ku fuudnay warkii markaan u dhiibay intii ugu cuslayd ayuu furihii gaariga ka qaatay wadihii kaligiina ka haystay waabarka xafiiska isku keenkeen ayuu yiri hagaag jaale taliye intaas ay nooga ekaato maanta qaybtii labaad ee xasuusihii sirdoonka Soomaaliya ee NSS fadlan subscribe saar gambaleelka furo si aad ula socoto qaybaha kale ee xiisaha badan